wasiir dowlaha wasaaradda amniga jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa fariin dheer waxa uu diray dhammaan mas'uuliyiinta iyo baahda kala duwan ee xisbiyada qaranka inta lagu guda jiro ololaha. waxa kale oo wasiir dowlaha amniga jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo fariin ka duwan taas u diray shacabweynaha reer Soomaaliland sida ay u adkeyn lahaayeen nabadgelyada inta uu socdo ololaha kambeynka doorashadu. fariintan oo ku aadan bilowga ololaha doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah xisbiga UCID uga bilaabay guud ahaan Soomaaliland maanta 12 عشاء aynu ku jiro dowlad tuska iyo muxuu iyo dabaaldega xisbiyadu kale leeyihiin mid ka maalin hal dhowr nabadgelyada hal iska dhowr aflagaadada iyo arrimaha foosh xun dadka iska warkeenaya u sheego oo tilmaama inay doorashadu tahay xarago cod lagu kala badinayo codkaas inay ixtiraam mudan yahay in sidiisa loo maro dimuqraadiyadda waxa la yiraahdaa dagaal male la kala badi baa la yiraahdaa orod samaha wala kala badin doona waxaad xaq u leedahay inaad codka ku gudbiso waxaan leeyahay hal dhowr nabadgelyada oo u sheega oo ku booriya aad baan u arkay ucidiyo kulmiye iyo ugu baaqay muxuu dadkooga nabadgelyada inay ilaaliyaan waxaan leeyahay Cabdiraxmaanaha ku daro oo nabad aan ku footaynahay taasaynu ka rabnaa ciidamada nabadgelyada waxaan leeyahay waa xaalad bayn ku jiraa inaynu waxeegan galooynu muxuu aad indhaha u furay leeynooga baahan yahay ummadana ku boorino nabad aynu foojignaano aynu heeganaano ummadeena aan ka dhigano gacmaheena wax ku qabanayna indhaheena wax ku arkayna iyo dhagihiina wax ku maqlayna ummadaan ka dhigano ummadeena fariintaan faro oo nidhaano nala soo jeeda dalka iyo nabadiisaba nala ilaaliyo ummadaan nidhaano taasaan iyagana ku boorinayaa dadweynaha waxaan leeyahay idinka dad muxuu ciidanka dee u ah sidaan sheegay indhihi dhagihii iyo gacmihiiba idinka waa la shaqeeya ciidamada wax la waxaad garan weydaan soo sheegayaan leeyahay